السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالية waxaan rajeynayaa in aad dhammaantiin nabad qabtaan kadib markii aad meesha yar ee guduudan hoos ku taabataan aynu fideogeena hore u galno 2006 nin u dhashay dalka Ciraaq ayaa dalkiisa xaaladda amni oo markaa qasneed awgeed uga soo qaxay dalal badan ayuu ka soo tilaabay asagoo wili raadinaya meesha ugu wanaagsan oo uu ku nagaan lahaa asaga iyo reerkiisuba wuxuu soo jiitamaba ugu dambeyn waxa uu soo dhex fariistay magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan halkaas oo uu ku doortay markii uu dhulkiisa joogay in uu xiriiro ganacsi ku lahaa ganacsadayaal badan oo joogan ay isgaranayeen uuna ka shaqaysan karo haddii uu dadkiisii helo ay isla ganacsan jireen ninkaas oo aynu ugu yeeri doono Faysal waxa uu joogay laba gabdhood tan weyni reer bay leedahay ilmay dhalootay 40kii bay albaabka ku garaacaysaa tan yarina waa gabar yar oo hadda jaamacad bilaabaysa Faysal markii ay gabadha weyn u dhalatay khaatiir badan buu tagay oo wuxuu yiri maxaan ilmo kale u dhalay laahay warkiisa waa la saari waayay waxba ma jiraan bay cid walba ku tiri haddana wuu ka qoostay oo waxa uu isiri waa badalmadeysayba ilaa maalinka dambe ilaahay qadartiis gabadhan alla ku manaystay yar una ula baxay Saara inantiisaas yar labadaysi indhood uu ka jeclaa waxay tiraahdaa jira walbay doonayso u sameeyaa si aanan inaba caadi ahayn buu jeclaa iyaduna inan toosan bay ahayd oo waxa uu aabaheed ku faraxsan yahay ayay sameyn jirtay markaas gabadhiisa weyn iyo xaaskeeda iyo wiilkeeda yarba way la socdeen oo way la soo qaxeen reerkiisay u dhamaayeen noloshiba isugu hagaagtay farxad iyo deganaan iyo amni bay ku noolaayeen dhowr sana ka soo wareegtay ilaa markii ay yimaadeen Khartoum guri dambeystii Faysal waxa ay gaartay sanadkeedii u dambeeyay jaamacadda maalin ku jirtay maalimaha fasaxa shaqooyinka iyo jaamacadaha iyo iskuuladaba ayay reerkii oo dhami waxa ay go'aansadeen in ay dhowrkan maalmood oo fasaxa ay aadaan wabiga Niil ay markaa de waqti qurux badan si reer ahaan ku soo qaataan waa la isku raacay waa la soo heshay calaladii iyo wixii loo baahnaayo dhan baa la soo aruursaday waxay yimaadeen wabiga Niil mar doon yar la fuulo oo meelaha lagu tilaabsado iyo mar agagaarka lagu ciyaaro bay noqotay sijeeyada la gogladay alaabihii baa la dhigtay kama qasna sheekooyin baa la bilaabay iyo taariikho markaas ay sheekaysanayaan intoodii waaweynaa inankii yaraa oo ay Saara habaryarta u ahayd iyo ayadii waxa ay meel ishu qabanayso u dhow meesha ay ku sheekaysanayaan hooyooyinkood iyo aabayaashood ay ku ciyaarayeen kubad inankii yaraa bay la ciyaaraysay ilaa ay markii dambe kubaddi ka duushay midkood baa shoot ku kiciyay joog bay tiraad waana soo qabaniyay kubaddi way ka daba orday xogaa bay reerkii ka sii qarsoomeen inankii yaraana dayadu daba kacay waxay ariyataba kubaddi waxa ay aaday dhankaas iyo wabigii iyo ordaya say istiri kubaddu intaynan wabiga gaarin alla ilaahay qabo nasiib darro laakiin meel aynan arkin ayay ku dhex dhacday inta aynan kubaddi iyo wabigiiba gaarin labadii lugood baa waxay ugu aasmeen dhooqo ay kala soo bixi weyday intii ay marba dhinac u leexanaysay islahayd ka soo bax ayaa hir xoog weyn inta dhanka iyo wabiga ka yimi inantii oo idil hal mar dafay sakan gudaheed bay qarsoontay inankii yaraa oo qaylinaya ayaa wabigiisii ayayadiis iyo hooyadii ku soo noqday markaasuu yiri war soo orda haba biyihii baa qaatay marka inanku waa 5 jir Faysal oo lugaha jiidaya ayaa yimi meeshii si inantiisii ma leh marba dhinac u qayli ma leh maba muuqataba xitaa markiiba booliskii baa la wacay koox baarayaal la soo diray doomo iyo diyaaradaha la qaatay ilaa ishu ku wareertay baa laga baaray inantii nag waxna waa la soo waayay wabigi dhinac walba waa loo raacay ma leh dhowr bari markii la baarayay oo laga qoostay ayaa aabihii la yiri dee Allah ka thawaabiyo inantaasu waa ku dhaaftay maxay buu yiri inantaydii ma soo saaraysan mise ana doonta waxaan soo saarnaa bay dhaheen inanta wabiga laqay hadaynan qarqoomin bahalla cunay oo wabigan iyo xaasiyaa waxay ka yihiin tif iyo bahalla kala fara badan haday labadana ka badbaadayna meel daran bay ka dhacday iyo dalow oo dhul hada u soo baxday bagaajay u dhiman laakiin waxay u badan tahay bay dhaheen gabadhan in ay wabiga ku dhex dhuntay iyaduna de ma aha qofkii ugu horeeyay dad badan buu laqay wabigan wuxuu yiri gabadhaydii hadii ay qarqoontay muxuu soo bixilaayahay meedkeed ileen meedka biyuhu waa soo tufaanay iyo xaasiyase haday cuneen xitaa lug iyo gacan iyo far waxna maxaa looga heli laayahay iyo shay ay leedahay toona wallahi garan mayna bay dhaheen laakiin gabadhaas ka samar adiga Faysal naqaskii baa ku dhagay adduunkii oo dhan baa ku soo yaraaday gurigiiba ku noqday mise inantiisii ma leh inuu iska qayliyo keenay inuu hurdada ka soo sasuu bilaabay cuntadii waa lagu kari waayay nafsiyan buu xanuustay maalinkii dambe wuxuu soo ahaadaba waxa uu go'aansaday inuu inantiisii asagu baaro inantii warkii waxa ogaaday wiil u doonana oo ay eedeed dhashay oo markaa asagu dibadda ku maqnaa Allah samir iyo iimaankaas yaa la yiri Faysal doon ayuu soo gatay wuxuu keenay in uu gurigii habeenkii uu ku soo hoydo inta kale uu dhex wareegaya maalinba dhinac buu u raacaa asbuuc bay noqotay 2 asbuuc bil 2 bilood 5 bilood wilina Faysal waa tabtiis 3 sano iyo dheeraad baa ka soo wareegtay shaqadiisii iyo adduunkii oo dhan waa ka dhacay nayntiga wabigi uu taagan yahay xaaskiisii kala samartay iyadoo haddana inanta iyadu dhashay ayay asagii bilowday in ay sabtay qanciso asaguna wili waxa uu ku taagan yahay gabadhaydu waa nooshahay maba dhimanba war maxaa nool ma gabadha dhowr ka sano ka hor wabigu liqay balleeda waa nooshahay meeday haday nooshahay hadaynan dhiman xitaa
ay webiga ka soo baxday gaajay meel ugu dhimatay maxaa yeelay haddii ay nooshahay oo ay webiga ka soo badbaaday inantu oy dad heleenay noolaatay dee wayna soo raadin lahayd oo wayna soo heli lahayd xaaskii Faysal iyo gabadhiisii iyo wiilkii qabayba waxa ay go'aansadeen in ay odayan ku celiyaan dhulkii waa dalkoodii Ciraaq xogaabay xaaladdu kala degtay bay dhaheen aynu dalkayay ku noqono bal inay waalidaanu ka baado odayga mustaqbalaan baa ku dhacday waa u yimaadeen waxay dhaheen ina bixi dalkayga baynu ku noqonaynaa yaa buu yiri ku noqonaynaa oo gabadhaydii aan cidlada uga tagaa dhici maysa buu yiri taas innaba intaan noolahay inantayda waan la joogaya waan soo helaya war horta bal isu qabtay dheer odaygan waa la kixiyay dhakhtar baa la geeyay maskaxda ka daweeyay male waa ku qanacsan yahay inay wili nooshahay inantiisii waxay ku soo celceliyaan warkiiba waa qanciyeen 2010kii ayay dalka ku noqdeen reerkiisii ka warhayay inantii wax ku dhacay iyo sidoo walaalkood noqday ayaa ku soo dhaweeyay meeshii markaas Faysal shilna ma haysto lacagtiisii oo dhan waxay ku baxday baaritaankii inantiisa wuxuu kaligii isla sheekaysto iska fakaraba oo haddii uu dadka la joogay haduuna la jooginba ay isku mid tahay ayaa hameenkii dambe uu seexday oo ku riyooday inantiisii oo leh aabbo maxaad iiga tagtay maxaad ii cildaysay aabbo maxaad isaga daysay raadinteydii ii soo noqo aabbo ii soo hel waa soo kacay markaasuu iska ooyay iska qayliyay waxaan yeelaa aabbo xaggaan kaa raadiya xaggeed joogtaa balmaad waxna ii bidhaamisid aan kugu raadiyo wuxuu iska baroortaba iska aamus maalinkaas oo kaliya ma ayna noqone inantiisii waxa uu bilaabay in uu hameen walba ku riyoodo iyadoo intii uu kusoo celinaysa markay riyada ugu imaanaysana qabta dharkan ay xirtaan gabdhaha kaniisadaha ka shaqeeya waa dharka kaliya oo asturan oo ay naag gaala ah xirato dhar edeb iyo akhlaaq la weeye oo aanan meelna jirkoodu ka banaanayn iyo walba markii ay ugu timaado dharkii un bay qabtaa saa markuu in badan ku joogay ayuu maalinkii dambe yiri may ma jirto anigu waa noqonayaa Suudaan baan ku noqonayaa saalay maxaa ka jira suu yiri dee inantaydii baa joogta wariyaahay baa leeyahay niyow dee maxaanu kugu sameynaa maxaan saanu ku yeelnaa ma meelahan lagu xareeyo dadka walwaalan baa kugu xareynaa war inantan 4 sano ka hor biyo liqeen ma noole maad warkeeda iska daysid maya buu yiri fahmi maysaan inantaydii waa nooshahay maalin alla keenan riyada igu timaadaa aabbo kaale isoo raadi bay leedahay aniguna ma sii fadhin kara intaa ee idinku haddaad wax igu caawinaysaan dee waka haddii kalena albaabkaasaan ka baxaya idinkoon iga warhayn xitaa maadaama uunan shilin haysan markaas oo uu reerkoodii ku dhex nool yahay waa isu tageen walaalihiis iyo ehelkiisii oo waxa ay dhaheen war bal aynu qancino oo kolba inuu cararaan nooga darane qofkan maskaxdiisu ma fadhide aynu lacag siino dirno lacag baa la isugu aruuriyey iyadoo xaaladda haddana dalka ka xun tahay waa direen Suudaan buu tegay saastuu u tegayba sawiradii inantiisuu daabacay iyadoo dee tiradii ka badatay markaasuu magaalo walba oo webiga Niil u dhow iyo tuulo walbaba geeyey oo nambarna uu ku hoos qoray oo yiraahdeen ciddii soo heshay inantaas lacag intaa la eg baan siinayaa nambarka haygala soo xiriiraan iyo ciddii aragtayba xitaa soo helidda ma ahane iska taqaanaan waraaqada noocaas oo kala ah haddii aad meelaha ku dhagsatid kumanaan qof baa ku soo wacayso oo waxna aynan ka jirin waxay kuu sheegayaan kuwa kugu ciyaaraya xitaa ku soo wacaya macdaalika haddana waa dul qaadanayay nambar walbaba wuu qabanayay ciiduna war uma sheeg micna leh ama run ah maxaa yeelay markii war loo soo sheegaba inta isa sii daayo ayuu tagayay bartii loogu soo sheegay uu soo baaraayo soo waaya inantiisuna inan dadka u eg maynan ahayn Suudaaniyiinta waad garanaysaan say u eg yihiin inantu inan waxay ahayd cadaanti ka badatay oo Yurubiyaan u eg oo timaheedu xitaa ay cad yihiin indho bunni khafiifana leh sidii malabka oo kala ah marka inantaas kuma dhex dhumi karto dad Suudaaniyiin ah sidaa darteed ayuu war walba loo soo sheegay run ugu moodayay ha yeelay dadku cid kale kuma khaldi karaan inantiisa macdaalika haddana been bay u wada sheegayeen wuxuu marba meel u ordo ayaa maalinkii dambe asagoo meelaha iska damag leh waxaa arkay nin ay isla ganacsan jireen waagii uu ganacsan jiray oo ninka ganacsadaha la yaqaan ahaa nin ay isku xeel dheeraayeen ay si wanaagsan isu yaqaaneen ayaa warkiisa maqlay ninkan soo noqday oo markaa u yeeray wuxuu yiraahday new kaala maxaa ku helayna sheekadii oo dhan buu ga dhacay wuxuu yiri new de wakaasa waagii waxaan ganacsiga uga baxay inantaydii ayaan waayay oo aan ganacsiga iyo nafteedaba ka jeclaa ilaa haddana ayadii baan baarayaa dee webigaas iga liqayo anna waan rumaysan lahay inay dhimatay oo maskaxdaydaba kusoo dhici mayso si baan wax u dareemaya inay nooshahay baan dareemaya marka waxa uu sheegay ninkii riyada uu ku riyoonayay markaasuu yiri oo maxaad new wax noocaas ugu riyoonaysa miyaadan muslim ahayn war waa ahay buu yiri new ma aqaan wallahi muuji kolba mar walba waxay ii imaanaysaa iyadoo sida wuxuu yiri ama inantu iyadu carartay oo aynan webiga ku dhicin oo ay markaa diinta ka baxdayo intaas ay la fakanaysay ama ninba la fakad maya buu yiri walaalow saa hadhihin anaa gabadhayda kaa og 100% waxa maskaxdeeda ku jiro dhan waan ka warhayay iyo waxa ay ku fakarayso ha yeelay waxba igama aynan qarsan jirin intaana waxa kuu dheer inantaydu wiilka ay walaashay dhashay ayay aad u jeclay wayna isku haysteen oo inaba cid kale maynan ku fakari jirin anaa kaa hubataa iga qor intaana waxa kuu dheer inanka yar ee aan awooga u ahay baaba arkay labadiisa indhood buu ku arkay asagoo u jeeday inanta webigu dafay intaana waxa ku dheer anagu markii aan dhimaanay oo inanka yar uu noo yeeray lugaheedii meeshii ay galeen dhoobadii way noo muuqatay wuxuu yiri de waa yahay maxaad ugu riyoonaysaa inantaadu inay gabdhaha kaniisadaha jooga ay qabaan ay qabto ma adaa xoogaa dhanka u janjeero oo diinta ay shaki kaaga jira maya buu yiri subxaan allah weligay shaki igama gelin halkaana kuma mashquulin
marin. wuxuu yiri dee waayahay ma kaniisadaad xiriir la lahay maya buu yiraahday xiriirna kaniisad weligeed lama yeelan mana tagin agagaarkeedna ma marin. wuxuu yiri marka hadday intaasuba jirin